ويلك شقيق عيد تمام ماشي وما سنتي نقول وريك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته waryaarahan waa bal soo dhawaada bulshada dadka laga beeray soo dhawaada muuqaalka inoo la garay inoo share garay meel dhan inoo gaarsiiyay ducadina Ilaahay waa ya aqbalay maalmii ugu dambeeyay waxaan xanuunsanayay ducadina Allah waa ya aqbalay waa mahadsantiin qalbiga iyo beerka weydiga ogsooni intaas kadib ninka batan uga jeedaa waa Maxamed Jabuutaawi oo kamid ah ganacsatada dhulka Soomaaliyeed caanka ka ah sidoo kale tana kamid ah haldoorka iyo ma garanaysaa ganacsatada gobolka Sool ee Laascaanood Maxamed Jabuutaawi xarigiisa saacadii ugu dambeeyay barnaamijyada aad bay u qabsadeen qasab baa lagu soo qabtay xoog baa lagu soo qabtay isaga ay soo dhiibay waxyaabo noocaas ah dadka qaarna way ka cadhoodeen dadka qaarna aad baa u dhaliilayeen bal waxaan doonayaa hadaba inaan bartaydu gula wadaago odayaashii dhaqanka gobolka Sool ee Laascaanood iyo garaadadii oo hareeraha iyo garbaha ka taagan oo wada Maxamed Jabuutaawi hawshii habeenkii dhaweeyay doorashada habeenkii ka horeeyay dhacday Ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimatay Ilaahay naxariisto intii ku dhaawacantay Ilaahay u bogadhayo ilaa maalintii hawl baan ku jirnay meydkii waxaan aasaynaa galabta hawshaas waa dhamaatay hawshii labaad ee xaajiga ahayd iyadana waad aragtaan oo saldhigii baanu keenay waa hagaag hadaba Maxamed Jabuutaawi weligii ali sida uu muuqdo qof la soo qasbay baad moodaa waana ta keentay dad badan ee ka cadhoonay raadaan waxa loo bahdilaya laakiin arrin baa dhacday aad u weyn Maxamed Jabuutaawi maalmihii ugu dambeeyay wuxuu u hanweynaa hogaaminta iyo inuu kamid noqdo haldoorka maamulka waxaan uu kamid ahaa siyaasiyiintii iyo musharaxiintii la tartamayay firdhiye waxaana laga reebay musharaxiintii la tartamayay firdhiye cadhata ka kacday ciidamada uu hogaaminayo iyo ciidamada maamulka iyo amaanka ayaa iska horyimi halka waxa ka dhacday dhimasho iyo dhaawac saaka uga jeedana waxa sheegayaan odayada dhaqameedku iyo garaadadu iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil waxay sheegayaan in meydadkeena la aasayo sidoo kale tana arinta Maxamed Jabuutaawi in hoos loo dhaqi doono halka dadka qaar ay leeyihiin waa dambiile dad laayay waa dambiile macnaha dambi galay yaan la yaraysan ma lacagta ayaa u shaqeynaysa oo lacagta ayaa awood leh sida laajigeeda ay leeyihiin inta uu sameeyay hadduu qof kala sameyn lahaa maanta tiirka ayaa la keeni lahaa Maxamed Jabuutaawi tiirka la keenaa hadallo noocaas ayaa barnaamijyada aad loola dhexmarayay balse horta inaan ka degdeginay bila dhageysta odayaasha dhaqanka tala dheer ka bacdi sida odayaashu sheegeen dawladda waxa weeye horena waa ula shaqeynay hadeerna waa la shaqeynaynaa waxa la leeyahay wixii meesha ka dhacayna shaydaan baa ka adeegay wixii taleeda dambaana xukuumadda iyo reerku iska arki doonaan xaajigiina hadeer waxa weeye saldhigaanu keenay qabiil ahaan iyo qaran ahaan baanu ku keenay markaan u tagnay yaanu xaaji taladeeda ma qaadanaysaa aanu taladeena waa qaadanayaa buu yiri markaan ku niri waa ku kaxayna saldhigana waa yahay buu yiri iyadoo waxa weeye aad garanaysaan deegaankiisina inuu joogo dhulkiisina joogo haddana talada reerka nina kama weyna dawladana waa la shaqeynaynaa xaajigu laga bilaabo hadeerna waxa weeye saldhiga ayuu joogayaa inta hawshu waxa weeye ay dhamaanayso wixii kalena qabiilka iyo xukuumadda iska arki doona بس جاسيد وبدلوا لي قراتكودي horta wax lala yaaba ah ish bugtay ku bukaaso hadii maamul aad samaysataan nidaam aad samaysataan ganacsadaan ahay libaax baan ahay iyo miskiin baan ahay in loo sinaado waxa weeye meesha Maxamed Jabuutaawi oo haldoorkii gobolka Sool ah la soo qabto la soo ilaaliyo la xiray in yariyayna ma yar kooxaw meel isiryanayna weyn lagu soo ridaa ku tusaale qaata maxaa la yiri weysha qal dibiga qal weysha ku qoosatay meed mise weysha qal dibiga ku qoostay meesha ninkii ka dhaqaaqay baa la xidho jeelka la geeyay taas macnaheedu waxa dadka la doonayo la tuso in meesha system iyo nidaam uu ka jiro qof kastana la marsiin doono ama xeelad tab iyo xeelad wixii lagu soo qabanaya baa lagu soo qabtay ama la soo bariyo ama xoog lagu soo qabtay in uu jiro nidaam la marsiinayo qofkaas hadaba Maxamed Jabuutaawi garaadkiisa qori lama socdee oday dhaqameed fara badan ba meesha jooga cidda xurgufta ay kala gaadhay dhinacoodana ka soo jeeda cidda wax ka tabanaysa ka soo jeeda meesha shaqaaqada dhibaatada ka dhacday cidda ku dhimatay iyo cidda ku dhaawactay ehelkoodii iyo dadkoodii iyo garaadadoodii iyo cuqaashoodii iyo wax garadkoodii bay yihiin hadaba arrintan si kala duwan looga yara faa'iideysto balse horta marka koowaad muuqaalkii la dhageysta قرات شارع قرات اسماعيل وقاشينا ku dhagtay iyo kurtidii wax garadka waxaan halka u nimid oo wadnay
ninkii maxamed jabuutaawi ganacsadaha ahaa waxa weeye lagu eedeynayay inuu kiis galay annagaa soo xidhnay waxaan ku soo xidhnay saldhigga intii waxa weeye maamulkii dowladda iyo waxa aanu sarkanana halkaasuu la joogaya maxamed jabuutaawi soo xidhnay waxaanu keennay jeelka waxaanu u soo xidhnay in shaqaaqadii dhacday cid walba cidna aanay ka sarraynin sharciga nala ku ogaado cid dambena maanta ka dambaysa aanan maaragtay aanu ka shaqayn doonno annagoo beesha inaan dowladda la shaqayno wanaag kula shaqayno wax dambena aanan samayn doonin wixii dambena aanu dib maaragtay aanu kaga darsan doono hadalkayga waa hagaag dhammaantood waxay sheegeen inay soo qabteen ay soo xidhan iyagoo eegaya kala dambaynta iyo dastuurka iyo sharciga ay samaysteen in lagu dhaqmo waa kow waa talabaadee odaygan ugu dambeeya inta dhegaysiin doonaa si libaaxnimo iyo garanaysaa macnaha wuu asiibay baynu oran karnaa bal odaygeeda la dhegaysta isagana sii daa tirsanayo waanu soo xidhannay beel ahaan iyadoo inu hogaaminayo garaadkii beesha jaamacsiyaad uqaashi iyo nigarboodna aanu ku dhannahay cid walba waxaanu u sheegaynaa sharciga inaan cidina ka sarrayn waxay la tahay ku quusa quraan jabuu yidhi ninkii dambe ee maamulka iyo dowladda authority damca inuu isticmaalow mar haddaanu johoradii soo xidhnay gobolka nin walaba ku qudura qaado dowladdana sidaasaanu kula shaqaynaynaa annagoo isku dhanoo dhammaystiran waa hagaag haddaba waxaanu eegi doonaa maadaama maxamed jabuutaawi lasoo xidhay haddana uu xidhan yahay dadkii ku waxyeeloobay ku dhintay ku dhaawacmay intaba in ka mid ahna la aasayo intii dhimatay inta dhaawacayna la dhayayo dhakhaatiirta ay yaalaan bal maxamed jabuutaawi iyo ciidankii uu hogaaminayay ma isagoo qura ka xidhan si ciidankii uu hogaaminayay maxamed jabuutaawi la socdina way xidhan yihiin waa dadku aadka isku weydiinayaan sidoo kale dadka qaar waxay aad u qaadaya dhigayeen inay leeyihiin waa bahdilaad in maanta la xidho maxamed jabuutaawi horta waxa ayaan darro ah maxamed jabuutaawi wuxuu ka mid yahay dadkii dhiigga iyo dhuuxaba u shubay sidoo kaleeto adduunyadiisii iyo naftiisii iyo maalkiisina dul dhigay awlaaddiisii iyo carruurtiisina ay ku naf waayeen juhdiga iyo dadaalka uu ku bixiyey maamulka maanta ka dhisan gobolka sool laakiin waxa aada isku weydiin u mudan inaan dee magaranaysaa hebel soomaaliduna waxay yaqaanaan hebel meesha uu cid kale ma jirto laakiin waxa weeye waa in dadka iyaga lagu bilaabaa sharciga weyn garadada lagaga bilaabaa hadday wax istaba mariyaan waa in lagaga bilaabaa ganacsatada waa in taliyayaashii iyo nimankii yaacaya lagaga bilaabaa waa in fidhiyo laftigiisa lagu xigsiiyaa waa in sharciga dee loo sinaadaa soomaalida kolle sharci kuma dhaqantee kolle meesha dhaqameed iyo oday dhaqameedna kama dhamaato bal wareegi doonaa ani way ka hor dhici mayno halkay kusoo dhammaato munaaridkeeda waa mahadsantiin muuqaalka la gareeya sheer gareeya meel dheer gaadhsiiya waydinkaa